الدستوري ورا كسير محكمة الدستوري أفريقيا ولا المجال فهمت هوا لكن أنا نصيبنا وحن لشقي ضد بدن وأشخاص الدولة مدة مدحوينها هالكشيء يكون أمانة وحيتهاي من قلبي جيس ضدك الله الصعداء إنه واحد بدلنا الرضا دا عادينا كتر waxaan ogolaaday hawshan anigu dawlad uma shaqeyn 84 wax ka dambeeyay haddana uma shaqeyn waxaan ogolaaday hawshan caamka inaan qabto waxay ahayd wuxuu wacd ilaahay ku maray inuu wixii dadka u habboon sameeyo waana ku kaalmeynayna anagoo waxna uga bedelan waxaan filayaa haddii asaga keligiis ku xirnaato inuu dhisaayo labada aqaale kale ragga joogaan rag odayaal oo dhamaantood waxaan ka rajaynaynaa intii la galay sanooyinka hore aan la gelin dhamaantood waa niyadsan yihiin marka dawlad la yahay waxaa jirto xuduudo badan oo la ilaaliyo madaxweynaha wuxuu uga bilaabay xabsiga dadka dhibanayaasha ah masaakiinta ah xiran markay maxbuuska qofka xurriyadda ka maqan tahay ducadiisa xataa maqbuul oo umad musiibo haysataana horta maxbuuska in laga bilaabo daawi ah mana filayo madaxweynaha inuu ka joogsan doono inuu dhammaan hore u socdo oo qaladaadka jiro ifiyo sidii laga yeeli lahaa dadka kala tashado maaha nin kala boob ah u fiirsada halkii anaa aqaana anaa yeelayana ma wato wuxuu rabaa inuu tashado wuxuu rabaa in talo la siiyo ilaaha dhammays ah talaan u baahanahay dadka ugu jilcan ka bilaaba ma yiri annaga keliyana soomaali aqoon-yahan uma yihin khubarana uma yihin waxa ba'san ee naga ba'san tareen dheer waayo waxaa nasiib wanaaga hadda xukuumaddan waxay xalisay hay-adaa jirtay khidmad qaadata iyadoon adeeg bixin oo magaceeda ma sheegayo munaasab ma aha sax waa dekedaasay waxay ka qaadan jirtay ganacsatada waxay keenaan lacag waa laga joojiyey si tallaabooyin la arki kara waayo haddaanay waxaan idiin sheegay dawladda hoose laftigeeda arrimaha dhulka iyo caddaymaha tallaabooyinay qaaday marka adduunyada waxaa ugu fiican markay wax socdaan carabta waxay tahay alxaraka laha baraka xarakaa bilaabatay baraka aan rajayno qalbigeenna mid ha ahaado dad dulmi doonayo ma ihin soomaaliyaanna aan u midaysnaano inaan kaalmayno jidkaa saxaa cadaaladda soo fiirsada soo ogaada 3 bilood soo socota waxaan ka qabanay cadaaladda cadaalad waa dhammaatay ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan in xaqooda ay heli waayaan wax fiican maaha ragga odayaasha oo xaakimiinta ah waxaan idiin sheegaynaa haddii awal ay jireen inaad guryo xukuntaan 5 jeer oo isku rogtaan waktigeeda waa dhammaaday in hooyo ooyeysa ama qof xaqiisu u ooyaya aad dhibaataysaan waktigeeda waa dhammaaday cadaalad baa laydinka raba haddaad cadaalad keeni weydaan annagana ma madhashaan shacabka ma madhashaan dawladda ma madhashaan waxaad ku dambaynaysaana xabsi mar damba dhici mayso oo anaa ballan qaaday oo dawladdaana ballan qaaday qof soomaaliyeed intuu hortago maxkamad cadaalad darro lagu sameeyo hawshaasi waa waxyaabaha dalkan meesha uu taagan yahay gaarsiiyey oo ilaahay noogu carooday oo aan adduunku uga hooseelno 2 qof iyo 3 qof oo xun ka yeeli mayno inay magacayna isticmaalaan ummadda soomaaliyeed ay duleeyaan ay dhibaato u geystaan oo ay xaqdarro ku sameeyaan u adkaysan mayno waa idinla xisaabtamaynaa haddaad hawl fiican qabatinna oo cadaaladna annagana waa idinku abaalmarinaynaa aakhirana ilaahay waa idinku abaalmarinaya jannad ku gelaysaan haddaad dhibaato samaysaanna annagaa idinku ciqaabayna aakhirana waa ku dambaysaan